wasiir Axmed Ciise Cawad iyo dhigiisa Kenya Monica Juma ayaa ka wada hadlay xiriirka iskaashi ee labada dal iyo xaaladda xuduudda labada wadan ee Mandheera iyo Beled Xaawo. kulanka labada wasiir waxaa ku wehelinayay siyahayaha safaaradda Soomaaliya ee dalka Kenya Mudane Cali Maxamed Sheekh Cali Bagadi iyo diblomaasiyiin ka tirsan dalalka Kenya iyo Soomaaliya. wasiirada ayaa isla gartay fulinta go'aanka madaxweynayaasha labada dal ee ah in xaaladda Beled Xaawo iyo Mandheera loo maro guddi farsamo oo ka kooban maamulada gobolada Gedo iyo Mandheera kuwaas oo kulamo ku yeelan doona labada magaalo. sidoo kale labada wasiir ayaa isku raacay in shirka xiga ee guddiga wadajirka ah ee labada dal lagu qabto degmada Mandheera sida ugu dhaqsiyaha badan halkaas oo looga hadli doono xalinta arrinta xuduudda iyo iskaashiga labada dal. dhinaca kale wasiirka arrimaha dibadda ee Kenya ayaa sidoo kale sheegtay inay tababaro caafimaad maamul iyo macallimiin ay siin doonaan Soomaaliya taas oo la bilaabi doono bisha September ee sanadkan. Umar Caaqil, SNTV, Nairobi.